وين يسكفرنا marka hore ayaa badamaantii u wanaagsantii guddiga state group library Burca library project ama guddiga u xilsaaran inay ka howlgasho hawsha library ama maktabada Burco caawa halka waxa isugu yimid guddigii mashruuca iyo xubno kale oo muhiim ah oo runtii jaaliyada ka tirsan oo iyaguna halkan noogu yimid in ay taageeraan mashruuca waxaan jecelahay inaan shirka inoogu furo Sheikh Abdiaziz oo dhinacayga taagan ilaahay khayr siiye Sheikh Kusolo والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ويسر لنا ما ينفعنا إلهي waxaan weydiisanaynaa inuu dambigeena dhaafo marka hore oo khayrka ay meel kasta joognayna waafajiyo waxaan runtii u mahad celinayaa guddigan hawshan soo qaban qaabisay project leeyahay Burco oo muddo dheer hawshiisa ka hawlanaa oo halkan ugu soo siyaartay galabta hawshan kala soo qayb galay ugu soo sharfay runtii waxaan leeyahay dabcan sida loo wada socotaan waa dhiirigelin kelmadooda aan oranayaa waxaanay tahay arrin loo wada baahan yahay waana amuuraha masaalix alcaamaha ee ummadda wuxuu taraya wixii wuxuu taraya noocaas oo kale ah in laga wada qayb galo waa wada garanaynaa xaqiiqaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha noocan oo kale ah in la dhiirigeliyo oo la siboodo oo la taageero oo la hirgeliyo waxaa runtii xaqiiqo ah baahidan inay baahi jirta tahay maadaama ay baahi jirta tahay oo waliba daruuriya waxaan leeyahay walaalayaal meel kastoo la joogo saqiir iyo kabiir laga qayb galo ha lagu taageero guddiga hawshan ku hawshan ha lala shaqeeyo ha la fuliyo xoogaa imika projectkan soconayay bilowgu ku jiraa laakiin wuxuu u baahan yahay gacan wuxuu u baahan yahay hadday tahay qurbo jooggeena xaafadaha jooga ingiriiska iyo meelaha kale iyo dabcan dowladda Somaliland iyo cid walba oo hawshan khayrka taageerta waa wax fudud oo si fudud loo fulin karo waa inaan runtii fahamnaa projectyada nafciga leh ummadda wuxuu taraya development ah ee aakhirada wax laga taraya ifkana wax loo taraya ummadda kor soo qaadaya dawladda taageernaa إلى ضبطنا هذا الإلهي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا تصل لوجه الجليو هذه ولكم هذا الأمانتين وتشرف طبعا هذا كان كسر أو شيء تعاون الله هاي كعمال استبصرة وهدارنا وضع وإن شاء الله فريه هنبقى إن شاء الله يكون لي السلام عليكم ورحمة الله. أنا كسر ويو وحسنا في الرفض دي بدونيها UK society أما سمعنا society بس الله يقانو محمود حسن محمود كسر وسات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المقرأ آدي أربعين دين سلام يا وحدكم سلام يا صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بقول هذا يوم قاعد جاليد يقول عرق دلك إنجليزكا كنتي وحعاو شرفنا مرتقات كان نقصوا مرتقاتين جديدة برع ليبراري ورنتي المشروع عن إن بدن بودي وقعنت كوهي سي آدي أربعين فرح سن هاي أنا بقول هذا يوم قاعد جاليد رنتي آدي أربعين تاجر سن هاي هذي أمنا هاي جاليد جودي عرق دلك إنجليزكا وحنا نشعل لها إن أنو قعنوي كجيسنا وكقيم قادنا وأنو رنتي لا ينتو بلاد ما يامو دمانة يبقى أنو قرب تاجنانو وهي مشروع ومشروع عادي أضيف عن وينوكسون هاي كي هراء هرجيسة نكسميني وحير بينو قاتي وحوي برشة الرئيس ومال الله هي أبنتتي كنفر عنا وعاصمة كحجانكي مركا وحوي والليبراري قل بعض ينقنايا إنه عينا أباهنين قعنش الشيء وعمين عاوسة أما هاي ذبه وحوي يدك الرئيس ومال الله أيا سكوت الشضي أو دستي كهراء كانوا عن شعلها إن أينو سيدي أو كله أينو لسانه وايو آدي آد مهم وياهي وحنا أقولنا هاي أنت جامعات أما سكول برعك وياله ومش كلية نورك إنه يدك كن والبوين وكسرنا هاي قيمها كلها هاي نوين أقولنا هاي
markaa waxaan ka codsanayaa bulshada reer Somaliland meel kasta ay joogaanba jaaliyadaha jooga America ama Europe ama meel kasta ay joogaanba inay ka qayb qaataan library-ga Burco waayo waxa weeye caruurteena taariibaysa ama balwadaha ayaa runtii u baahan oo balwadaha iskaga joojinaya oo taariikhda iskaga ilaalinaya waa meel aynu ku ururin doono oo lagu ururin doono taariikhda Somaliland waayo taariikhda reer Somaliland waxay u baahan yihiin meel aynu ku ururino aqoontii Soomaaligii wax kastaba marka waxaan jecelahay aynu ka qayb qaadano oo aynu taageerno oo aynu meel kasta aynu joognaba aynu gaarsiino haddaynu nahay bulshada reer Somaliland aad iyo aad bay muhiim u tahay marka waxaan jecelahay insha Allah shirka weyn ee qaban doonaan ugu soo horeeyay ee lagu qaban doono magaalada London runtii inaad si weyn uga qayb qaadataan oo jaaliyadaha kala duwan ee meel kasta joogaan ay nagala soo qayb galaan annaguna insha Allah waan taageeraynaa waana u ducaynayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalmaha kamida ayuu inoo dhameyn doonaa si yar baan inoogu dhameyn doonaa aynu isgarab taagno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh يا بنتي دومي mahadsanyahay waa runtii fariin aad muhiim ah fariintani kaliya waxaan jeclahay inaan xasuusiyo dadweynaha reer Somaliland kaliya kuma socoto fariintani reer Burco kaliya library-ga waa library Somaliland oo dhan ay leedahay waxaan ka codsanaynaa inuu yarjigreeyna mar kale dhammaan sidii aynu ku hore uga qayb qaadanay hadii ay beerado in jaaliyad bulshada reer Somaliland gudaha dibadda meeshii ay joogaanba ay hawshan insha Allah qof dheer ku joogo iska xilsaaro sida xubnaha hore iga horeeyay ay sheegeen waa dan guud oo inaga wada dhaxaysa dhammaanteedba waxaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo microphone si kelmadiisa yimaado oday Axmed Cabdilaahi oo kamid ah odayaasha xaafadda kana mid ah ruucadaga reer Burco kusoo dhawaad afayeenka project-kan ama Burco Library oo dhinacayga fadhiya Maxamuud Barre kusoo dhawaad Maxamuud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا دمان شعب Somaliland. إلهي بمهندس كله وما تعلق سوها كياني أنا قو هولان library Burco وإن بدن ضد كتابين واحد بدن بمقاشة سياسيين يعني ما دونيين لدرسه لكن سيمك إن شاء الله بسم الله الكريم أنا وحنو صبنا بحنا إلى إنه كقريب قادنا وحبر الشدة ومدة إنه كهول قلنا library-ga oo aanu si insha Allah bidmillahi kariim si toosa cid kastaba aan meel kastaba abaarno oo aanu tacab badan galino waqti badan galino ummadda jiilka soo kacayana aanu insha Allah bidmillahi kariim u horseedno inay waxbarashadu qaali tahay inay meel wax ku akhristaan meel ay ka helaan buugaagta aan imika wadankiiba badanaba ool runtiina annaga waxa naga daacada inaanu si wacan uga wada shaqeyno annagoo isku duuban oo waliba taageerana weydiisanayna ummadda dhammaan Somaliland meel kastaba ay joogaan waayo inaka Burco ama Togdheer jooga iyo kan jooga Seylac jooga ama Laascaano jooga ama kan jooga Sanaag intaba way isu baahan yihiin waxbarashaduna waa waxa ugu horeeya ee dadka jiilkeena cusub aynu doonayna inuu ka ababino oo aynu horseed ugu noqono insha Allah bidmillahi kariim inta saar kaga baxaya waan islaamaya wassalaamu calaykum waxaan ku soo dhaweyn doonaa Faisal oo runtii kamid ah gudida Burco Library oo isaguna dhinacayga fadhiya soo dhaw Faisal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd wa ma tanaya jaamac oo xino xiriirinayay أنا قدوميها كديدة library-ga Burco waxaan runtii isagana u mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan u mahadcelinayaa gudoomiye Axmed oo ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga siyaasiga ah ee kulmiye oo runtii maanta aan halkan u iman siyaasad ee noogala soo qayb galay arrinkan khayriga ah ee la wado gacanna ka geystay mid dambana laga fili doono inuu ka geysto oo maaragtay wax bixin iyo iskarab taag intaba waan uga mahadcelinaynaa waxaan isagana u mahadcelinayaa dhammaan xubnihii ka hadlay halkan Sheekh Cabdi Casiis afhayeenka gudida mudane Maxamuud
oo ah haddana guddoomiye waa urur kaloo khayri oo gobolka Sanaag ka jira oo horumarinta gobolka iyo nidaamkaasa runtii waa bulsho midho fiican bulshada ku dhexlay waxaan kaloo u mahad celinayaa guddoomiyaha SSUK mudane maxamuud oo runtii arrimaha badan oo khayriya iyo waxqabado badan isbarbartaaga la oran karo waxa weeye wuxuu u yahay gidaar adag oo lagu tiirsado halkan aanu joognana dee aaba maamulaha restaurantkan iyo hotelkan runtii maxamuudna waa mahad celinaynaa wax badan oo maaragtay bulshadu ijtimaaciyaadkeeda iyo arrimaheeda ay qabsato kama maqnayn lambar 1 uu ka yahay shirka dambe la qaban qaabin doono ee fundraising loogu ururin doono ee ummaddu isugu iman doontana qayb libaaxle ayuu ka qaatay oo uu wadaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hablaha uga yimi meelaha fog maalin walba oo maartay la shirayo waqtigooda u soo hura dadka dhulka jooga waa dad wada shaqeeya 5 cishaba labadan cisho waa labadii cisho nasiimada inuu qofku maslaxa caama iyo wax dadka ka dhaxeeya uu waqti siiya waa wax adag oo runtii qof isagu iska jaray uu baa iman kara waan idin ka mahad celinaynaa ka soo qaybgalka inta marka laga tago library-ga Burco iyo maktabada Burco labadaba waa laba luqad qalaad afafkooda ku jira laakiin marka af Soomaali ahaan loo macneeyo waxa weeye goob kulimeed lagu kulmiyo buwaagta iyo kutubta laga faa'iideysto cilmiga waxa ku jira oo qayb ka ah maktabadii islaamiga ahayd oo kutubteedii iyo marjicii loo noqon lahaa kutubta la dhigi doono waxa kamida masaajid isagana khayri oo ay yeelan doonto maktabadu waxay u noqon kasta qof kasta oo ka qayb qaata oo ka adduunyo geliya ka waqti geliya ka maartay dhulka ku taageera ka dhagax ku darsada sadaqatun jaariya ayay u noqonaysaa ilaa yawmal qiyaamaha inta ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka rogayana u socon doonta maktabadan ama goob kulimeedkan buwaagta iyo kutubta lagu kulminayo lagu akhrisan doono saldhigga looga dhigi doono waxa laga dhisayaa ama lagu magacaabay inuu yahay magaalada Burco goobta laga dhisayaa Burco ah laakiin wax ummadda reer Soomaaliland kala leedahay maaha dhaqaalaheeda inay ku bixiyaan sadaqatul jaariya wax la yiraahdo inay ku bixiyaan qofku marka uu dhinto amalkiisu wuu go'aa 3 arrimood mooyaane walad saalix oo soo duceeyo wifka kaga tago sadaqad jaariya oo wax ku darsado sida maktabadan masaajid ceelu qoday geedu meel iyo wixii la mid cilmun yuntafacu bihi iyo cilmi lagu intifaaco oo ay kamid tahay maktabadu laba qaybood bay ka soo galaysaa haddaad cilmigii iyo buwaagtii lagu akhrisanayo wax ka dhigto iyada dhiskeedina ka qayb qaadato laba sadaqatul jaariya laba meelood baad ka soo galaysaa waxaan ku boorinaynaa oo ummadda reer Soomaaliland iyo dadka khayrka jecel ee ahlul khayrka ku boorinaynaa waa sadaqatul jaariya meel la kala leeyahay maaha qof walba ku darso qiyaamaha inaad ilaahay ugu dhawaato oo aad la hortagto ayaa loo baahan yahay aad baan idin soo maartay mar labaad iyo mar saddexaad bay idinku mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نادي أدبر نتي فيصل مهندسي يمكن وحن شعلها حاجة رجوم بين هذا لقينا كسر دمويه حقيقها مشروعا برع لابريري أو أرنتي إن دليرة ورير سومالي لنا أنا دليرة يمكن كوكرت إلى خير سيرنتينا دليرة إفت كبدن جلسي مشروعا فدود حاشي كسر دو. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. In the name of your Lord who created all that exists. We'd like to introduce to you today the Bur'o International Library Group project. We are a group of a UK-based charity based in the UK to establish a library in the centre of Bur'o. We don't have one yet, so inshallah with your help we can create one there. Our mission is to have a facility there with internet, books, and other facilities are just conference rooms, state-of-the-art facilities as well, inshallah, with your help. We are a non-profit organization. We operate under the Safa wa Mar'a group. So, inshallah, you can look us up there as well. You can get involved by volunteering, inshallah, and like our Facebook page. We have a YouTube video as well. You can look us up by the Safa wa Marwa charity, Safa Marwa charity page, and you can inshallah donate there as well. So thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan
gobolka Togdheer iyo khaasatan gobolka Togdheer iyo caamatan Somaliland oo dhan library-gani waa u muhiim gobolka Togdheerna waxa weeyaan gobolka caasimadii labaad ku taalo ee Burco marka reer Burcona inay iyagu fadhiga ka kacaan weeyaan waxa ma sha Allah inaynu niraahno weeyaan caruur familiyadu way farbadan yihiin guriga laga yaabaa inay 8-9 caruur joogaan oo ilmahaas uusan haysanin space uu wax ku akhristo library-gu wuxuu siinayaa facility uu meel uu wax ku akhristo important weeye inaynu caruurteena wax barno haddaanan caruurta waxba la barin meel lama gaarayo marka ilmuhuna waa inuu haysto space uu wax ku akhristo talabaad maxay ahayd family badan baa jira haday doonaan aan laptopki dunidan technology-ga lagu kala hormaray marka waxa weeyaan facility-gi technology-gi meel uu ka heli karo buugaag uusan iibsan karin meel uu ka heli karo space uu wax ku akhristo meel uu ka heli karo intuba waxa weeyaan waxay u saamaxaysaa library-ga marka uu magaalada kuugu yaalo inuu ilmuhu meel haysto uu wax kuna soo akhristo cilmigiina uu ka korarsado cilmigii ma aha cilmigii kaliya dunida uun ifi aakhiraba waynu u baahanahay inaynu ilmaheena barno maadaama masjidna meeshii laga dhisayo oo islamic center uu qayb ay raacsan tahay library-ga marka waa important inuu ilmihiina xaggii maadigii iyo xaggii cilmigii diinigaba uu barto uuna ka helayo wax allaale wuxuu u baahnaa marka insha Allah waxaan ka rajaynayaa reer Burco iyo reer Togdheer iyo reer Somaliland inay isbarbar taagaan library-gan Burco insha Allah biidmi Raxmaan biidmi Kariim oo sidii dhaqsale inoogu dhamaado waana ku hanweynahay inay arintaas inoo hirgasho wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Khalid waa kugu soo dhaweynaya kelmadaas aad tiraahdo bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idin salaamayaa dhammaantiinba gudida soo qaban qaabisay iyo xubnaha hormuudka ka dhismaha library-ga Burco library aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa kulli waa arrin loo baahnaa arrin aad iyo aad u muhiima ayaa gacanta ku haysaan dhismaha library-guna reer Burco ahaan iyo reer Somaliland qarankoo dhanba waa muhiim marka waxaan codsanayaa reer Somaliland oo dhan iyo reer Burco inay ka qayb qaataan dib u dhiskiisa iyo dardargelintiisa kulli hore foofurguma ahayn annaguna maanta ka soo qayb galay diyaarna waan nahay hiiliyo waa la garab taaganay waan ka qayb qaadanayna dadkana waxaan soo jeedinaynaa inay arinta iyada ku baraarugsanaadaan nagala qayb qaataan xubnaamka soo qaban qaabiyay barnaamijkan iyo hormuudka aad baan idinku mahad celinayaa dhammaantiinba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Cabdiraxmaan Maxamed Kaahin isagoo halkan fadhiya kelmadaas aad tiraahdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أدبان الدين سلامية دورك السوق من قابية هوشن محل هذا ياد بيقول مهسيهين كلمة قيمة لبها درتين تاستري تذكرين محل هذا أي فاميلي دين عرور بدن بيدلان محل هذا أي والحمد لله لكن سبيسي وحكوا خريستان قريها محل هذا أي لقما هلو هذا قلة يروح تاد وحكوا خريستان هشيد بوقي سواحن كي كلا ريركا محل هذا أي كل بيه marka magaalada noo 300 qof ay ku nooshahay oo intaas oo iskuul leh oo jaamacad leh in runtii bila maxaa la dhadayay library ahata ma ahayn reer Burco hadeen nahay isku tashiga iyo maxaa la dhadayay wada qabsiga waynu sameyn jirnay hore inuu soo tijaabinay jaamacadii Burco aynu dhisnay bridge baynu dhisnay isbitaalkii maandey aynu dhisnay maalin walba dadka reer Burco maxaa la dhadayay arrin muhiim oo sidoo kale arrimaha mushtaraka lagu yahay bay maxaa la gacanta ku hayaan kani waa ka ugu muhiimsan waana kii koobaad noqda magaalada way ballaaratay hal library kuma filla maxaa la hadii halkan imka maxaa la kan magaalada bartamaheeda laga dhiso ninka magaalada koonfurteeda iyo ka waqooyigeeda ka galbeedkeeda iskuulada maxaa la library loo sameeyo anu bariga yaraa Burcan ku soo koro iskuulka ka dhigan jiray iskuulkayga library mu lahayn magaaladuna library ma lahayn ciyaal fara badan maxaa la yiraahdaa walaalaan hayno maxaa la yiraahdaa sawaxan kaas wax ku akhrisan jiray marka hadeen reer Somaliland nahay guud ahaan iyo hadeen nahay reer Burcaba weynaynu maxaa la yiraahdaa aynu kacnaa barnaamijkan oo aynu maxaa la yiraahdaa si weyn oo mugle uga qayb qaadanaa waa mahadsantii aad iyo aad Cabdiraxmaan mahadsan yahay waxaan jeclahay inaan ku wareejiyo mikrofoonka ninka originally ay maskaxdani ka soo maaxday markii hore Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammad alayhi salatu wassalam oo ay
marka hore waxaan u mahad celinayaa xubnahan shirkan Burco Library guddiga caawa ka soo qayb qaatay iyo marti sharafta kale aqoon-yahaniinta ee noo yimiba insha Allah iyo hablahaba insha Allah dhammaan iyo gudoomiyaha SSUK intaba way mahadsan insha Allah I think hadaladii de maaragtay runta wacaninta badan waa la soo koobay waa la yiri anigu laakiin waxaan ku darsanayaa oo kaga duwan runta wacanay haddaanu dad muslimiin nahay hadday noqoto degaan iyo hadday noqoto qaranba inaanu isku tashano oo wax wada qabsano oo qorsheyn yeelano hadday noqoto tacliin iyo hadday noqoto caafimaad iyo hadday noqoto horimarba runta wacanay waa muhiim weeye waa laga maarmaan weeye imika wada socotaano maaragtay caruuraheeni maaragtay Somaliland iyo Burco gaariyan aan mashruucan Burco Library u doonayno dhex jooga runta waana de chance iyo opportunity maaragtay hadii insha Allah la dhisi lahaa ay heli lahaayeen buugta iyo qalabka iyo computerada iyo space kaba de maaragtay waxyaabo badan ba insha Allah maaragtay meel badan bay gaari lahaayeen inageena maaragtay particularly inteena badan qurbaha ku soo korray de maaragtay kamana maaragtay kamana magac macnin maaragtay kamana magac dheerin kulligeena maaragtay de 9 bilood maaragtay 9 bilood ku wada dhalanay marka waxa chance ka maaragtay alxamdulillah ina gaarsiiyay ilaahay mahadiisa iyo de wadamada maaragtay reer galbeedka nibe maaragtay tacliinta bilashka ka helay maaragtay san engineer noqono ama business people noqono ama maaragtay qalabo badan oo helo imika gaariyan magaalada London maaragtay qaybtan doonaan maaragtay library ka tagi kara buugan doona ka soo qaadan kara wan fadhiya cidnay weydiin mayso maaragtay waxaan meeshan u imi iyo maaragtay macni wax kala toona marka waxa soo dhan maaragtay rag ba gaaray wadamadan maaragtay library ma waxaad moodaa wadamada islaamka inaan ku soo baraarugnay oo isnidi iyo aan reer galbeedka ka dayanayno ma 1400 library u horeeyay islaamka waxa laga dhisay wadanka leeyahay maaragtay Morocco wadamada leeyahay Egypt waxaan oo inaga haysan wadamada Iraq inaga ugu horeeynay laakiin marka nagu maaragtay taariikhdii iyo history-ga dayacnay ee dadka inta badan ay labo kala qaybsameen in maaragtay yiri masaajidku man ku koobnaanaya iyo in yiri maaragtay macnihi maaragtay nagu waxba kuma wacnina maaragtay macnihi wanaan sadaqa oo maaragtay sadaqadun qaadano ama aan hay'ada ka qaadano ama inagu maaragtay macnihi wax ma wada qabsan karo marka waxa walaalayaal muhiim dal iyo dabadba inaan isku tashano inaan qof walba maaragtay sadaqada iyo donationka iyo buugta iyo aqoonta iyo waqtiga hadaan inagu gelin oo inagu noqon maaragtay kuwa maaragtay macnihi dhagax jabiya de caruuraheena maaragtay wax dhaxal iyo waxaan uga tageynaa ma jirto magaalada maaragtay Burco particular waa magaalo ballaaran jaamacado badan baa soo kordhay iskuulo badan baa soo kordhay marka wax maaragtay meel maaragtay magaalada bartamaheeda oo haday noqoto meel caruurta ku nefisto iyo meel lagu jimicsado iyo meel wax lagu akhristo iyo meel masaajidaba waa inaan heli karo weey waa inaan gaari karo وين حكومة الصومال dhulkeena siin karto waayo Burco waa caasimadii labaad waana u qalantaa ma ogtay sida de maartay meel walba kala wada Soomaaliland ay ugu baahan tahay inta waxa ay raacda marka wada socotaan wadamada UK iyo wadamada Europe iyo wadamadeeniba caruurii maartay waxyaabo badan ba maartay macni education systemkii wadamada reer galbeedka soo galay dadkeena maartay maanta caruurii wala cararayaan marka walaalayaal haddana caruurii kala cararna maartay reer galbeedka iyo waska kala cararo laakiin Burco iyo Soomaaliland ku wadna maartay aan waxba inagina u sii shaqaynin de kuwa maartay Burco dhexdeeda joogay Soomaaliland dhexdeeda joogay maartay baahi badan haysta buugta ma iibsan karaan buugta ma helaan internetka ma haystaan reerka 10 ciyaal dhalay ninka 4 dumar qaba ee ka maartay makhaayada ka shahaya ama ku qayilaya caruurtii maartay meel ay maartay u kala dhaqaaqaan heli maayaan sidee bay dhakhtar u noqonayaan sidee bay macallin u noqonayaan sidee bay nees u noqonayaan marka walaalayaal waxaan idin leeyahay wax kale ma lihi kuweena qurbaha joogaan intaan chance ka haysano aanu ka faa'iideysano caruurteena wadankeeni maartay joogta bay insha Allah chance u tahay wanaagsan oo soo kacaya caruurta holiday halkan ka tagay reer galbeedka iyo America iyo Canada iyo Europe markay ka tagaan UK iyo wadamadan oo dhan waxba kama horeeyaan waayo inagii baan maartay wax u shaqayn marka waxaan idin leeyahay meel kasta aad maartay dadka Soomaalida afka Soomaaliga ku hadla dadka muslimiinta sadaqa jaarida iyo insha Allah jecel ka qayb qaataan library-gan Burco masaajid buu leeyahay meelo hidayada dhaqan uu leeyahay meelo insha Allah inama yaab laba leh buu yeelanaya insha Allah wali waxaad moodaa habli aad loo dayacay marka library-ga haday noqoto iyo haday wadankii noqoto dumarka iyo hablaha ugu dhaqaaq badan waa dumar weeye marka taas waxay idin tusaysaa inay dumarku maartay islaamka iyo deegaanka iyo qaranka muhiim ku yihiin aad baan idin salaamay insha Allah kala khayro kulleen TV-ga qaranku runtii aad iyo aad buu runtii mahadsan yahay waa 24 saacadood waxay u diyaariyeen inay hawlaha charity-ga jaaliyada ay ka qayb qaataan marka aad baan runtii uga mahad celinayaa guuleed iyo dalmar labadooduba iyo TV-ga bada asahool inta waxaan uga gudbay waxaan jeclahay waxa yaala halkan standard order formski dhammaanteen inaynu ka wada qayb qaadano oo la qaato standard orderka aynu qaadano qof walbana qofkii uu sii gudbin karay intuu sii gudbin karaba uu sii gudbiyo haddii ilaahay ka dhigo
waxaan kaloo jeclayaa halkan inaan ka announce gareeyo in insha Allah aynu soo organize gareyno guddi soo organize gareyn doono event ama maxay tahay fundraising event maalin insha Allah aynu dhaqaale ku ururin doono ama 2 maalmood aynu dhaqaale ku ururin doono hadda sida loogu baahdo taasina way soo socotaa the members inaynu farabadino oo aynu the house hawrin wada leenay basically waa voluntary waa hawl runtii ah voluntary marka dhamaanteen ba waynu ka wada qaadanaa standard forms kuna waa diyaar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.